بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan doonayaa magacaygu waa Kaysa Qani Xuseen. waxaan doonayaa geeridii shalay ku dhacday Taysiir Umar Maxamed in aan ka hadlo. Allah u naxariisto eheladiina sabir iyo iimaan dhammaanteen Allah ka siiyo yaan leeyahay. waxaan doonayaa marka cadaynta ka soo baxday guddigii ballaarneyd xukuumaddu ay dirtay Corneyl Mustariiq uu hogaaminayay baarista ka soo baxday oo ka bulsho ahaan aan xogtii aan helay kuna qanacnay inaan cadeyno ayaan doonayaa. marka koobaad xukuumaddu tallaabo fiican bay qaaday. guddi baaris ah Corneylkaas uu hogaaminayo Taysiir ay ehel yihiin lin heerka ka dhashayna ah yaa la diray baaris adagna way galeen. qodobka labaad waxay xukuumaddu amar ku bixisay ciddii shaqada lahayd ee booliska ahayd ee ku dhaweyd in tallaabo laga qaado. xorriyaddii laga qaaday la wada xirxiray. arrintii markii la galay gabadhu dhowr kees ama sababood oo soo noqotay oo isku soo noqnoqotay dacwooyinkeeda ayaa jiray oo dad caadi oo shacaba ay kala galeen. kow midda gabadha u horeysa Sagal Maxamed Cali gabadha la yiraahdo dagaal baa dhex maray. nabar bay gaarsiisay wajiga ah. xeer dhaqankii odayaasha wada hadlay. 4 halaad baa lagu xaqay. 40,000 baa lagu siiyay. waa lagu xiray. haddii ilaahay yiraahdo waxay u xirnayd waa la xukumay. marka inta aan xaq aan dhicin baa la xukumay. 6 bilood baa lagu xukumay. 3 bilood markay qaadatay xeer dhaqankiina lagu dhameeyay soo baxday oo naxariis loo sameeyay ay ku soo baxday. markii labaad waxay ahayd Yustur Cabdi Maxamed gabadha la yiraahdo ee isku dhaceen iyadana waxa weeye iyadana kiis bay ka keentay way soo dacweysay. markii saddexaad Bakri Cabdullaahi Bedel ninka la yiraahdo yaa haddana kiis ku soo dacweeyay. boolisku markaas u yeeray gabadhu. marka koobaad waxaan cid walba u sheegaynaa xubin dawladda ka tirsan mas'uul waliba xaafadeed ah firfirqoon shaqadeeda inay ahayd xubin xisbina ay ahayd. geerida ku timidna saqshi dawladda ka dhintay ay tahay. dhammaantana shacab ahaan iyo dawladdana barmadow ay nagu noqotay geerideedu. intaas markii ay dhacday booliskana la geeyay. eray lagu yiri intii aan marmaraaga aan baarista laga qaadin maadaama caadeysato tahay oo kiiskaaga ku soo noqnoqday booliska xukunkaagu sidii hore ma noqon hayo. feerarkii lagu sameeyay hore ma noqon hayo. dhib ka badan ba mataqaana ama waqti ka badan ba laga yaabaa in lagu xukumo. cadho horta meesha ay ka qaaday qolka la geliyay oo hinbay ku bilowday. waxaa joogay maxaabiis badan in la dajiyo oo frustrationka iyo buuqa laga dajiyay. maxaabiistu ka howlgashay way aamusi weyday. qolkaas lagu xiray albaab barandad oo lahaa albaabka horena waxay ku soo celisay markay talaabada qaadaysay gabadhu blokeed bay la soo baxday ama jaajuurka sidii walba u yaqaana albaabkii bay ku soo tirisay oo ku xidhay. ka bacdi garbasaarteedii iyo masarkeedii bay isku xidhay. sidaasay gacanteeda isugu dishay. boolisku dhaliila haddii uu leeyahayna guddigii baa baaristii weli gacanta ugu jirta. laakiin cid walba waxaan u cadaynaynaa Taysiir inay saa ku dhimatay innagana inaga wada dhimatay. sidaa la adrigeed waxaanu cid walba u sheegaynaa geerida Taysiir inaan dhufays laga dhiganin la siyaasadaynin bulshada iyo caruurta iyo xaaska wax magaratada ana aan la laga kicin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.